قصير بدح قرينا موضوع رسالة أخريين اللي حسن الحمص اللي قرين فضيلة أم رذيلة وقصير كوبا وسوكو بيا نكاس وحوها نين عادي هو كان عصده وكشقيا مروحدو يمين شيء دمشق ماشي لي هذا وقصة واقع نك آخرية قصة كشكل دعضي هيدبو تاريخ ذو شاكتي كتابه لجيسان شيء والنعامية شيخي بقى وكشكي نين صياده وارسلها بيرتو بدي وحكوت وري شباكتي markaas laba kalluun ayaa galay labadii kalluun mid baa isbaxtay soo tiri waxa meed iska dhigtay tii kalena way dhaqdhaqaad markaas tan waa baxtay uu tuuray markaas carartay midna uu soo qaato de waa cunay maalma kamid ah suuqii Dimashq dhex maraya oo marawaxadii wiilay marawaxda haya qof door u yaadho markaas gurigii galay gudaha markuu galay waxa ku tiri xumaan adigu sabaysan mooyaane dhaqaaq meeysan ku qaynaya ninkii uu yaabay naxdin baa Ilaahay u keenay khalad buu galay gurigiis buu galay markaasuu yiri waxa yeesha wuxuu xusay qisadii sheekhiisu ka shakiyay alla waxa iska dhigtaa xabadii kalluunka ay miskiimisay saad naagta dhibkan uga baxdo iyo mashaakilkan markaasuu intaas miya diyaar baan bal xaga musqusha biyaha la idhig musqul hore waxay ahaan jireen marxaad baa la yiraahdo Soomaalina way ahaan jirtay waxay lahayd waa loox weyn oo meedhow waxa maartay wasaqdu ay ku dhacayso hadhow taa loo xasaala saara meesh intuu galay buu wuxuu alla ilaahay markuu meel ka baxa waayay naagtani nin waalan baa ku aragtay wasaqda ismari markaas uu faraha ka shaday oo isku dhoobay buu way kan ka soo baxay meeshii oo waxyo waa oo naga baxay tuu cayris qisadu waxay leedahay ninkaasi markuu gurigiisii tagay oo dharkiis ka bedelay oo maydhay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu bedelay cadar udayg ah markaas rajul miski loo bixiyay oo xitaa waxa kule markii la aasay xabaalaha oo ku aasnaa yaani xabaalihi miski ayaa la oran jiray reer Dimashq way yaqaanaan bal waxaan ka wada ninkaasi wuxuu ka faa'iideystay sheekha darsigiisa ka faa'iideystay cilmigu marka wuxuu ku siinaya xalbu ku siinaya waxa kamid ah dadku inay ku ducaystaan in Ilaahay akhlaaq wanaagsan ku siiyo sida Nabiyullaahi Muhammad sallallahu wa sallam alayhi ku ducaysan jiray akhlaaqda xunna Ilaahay uu ka maangeli jiray ta wanaagsanna maxaan ku dhahdaa Ilaahay buu weydiisay Allahumma hadini li ahsani al-akhlaq fa innahu la yahdi ila ahsanaha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta Ilaahu akhlaaqda wanaagsan isii طحنا اللي يقفوا قبل رسول الله عليه صلوات الله وسلامه عليه وحلو باهي أو حلوش كمدة بالشدة إن لقى شقي إصلاحيدا ومرة قال كذا أخلاق محمد وحي كتم هذا في طنطا يعلاضها يصنعي كتم هذا مرة بالشدة إن لا إصلاحيه أو ضدكوا أي كشقيان مدين تأمضة خلاف كل قد حساره أو شعبكوا أضيال يرى يضدكوا لمن مدكليين ومضى إسلامك umada Soomaaliyeed mid kale inay tahay ay dareento oo waxay tahay Soomaalidu sagaaro tulla kala qaran malaha umadu waa mid kaliya midayntu waxay keenaysaa in wax badan oo dhaqan xun ay baxaan marka taas xulushay kamid tahay la doonayo la soo mashquuliyo waxa xulusha kamida in mu'assasaadka tacliimiga ahi ama jaamacad leh ama macaahid leh ama madaaris leh inay dhamaantoodba ay ku mashquulaan siday wax u sixi lahaayeen oo hadda nadawaadka iyo maaragtay seminaaro iyo kulamo dhibayti ay furaan oo hadiyagu marba la soo qaadanayo anshax xumada مثلا تلاقي هذه مثلا غالها كوساب صار وكله قرع استين لو فره معهم كل هذا دورات علمية ولا قرع عنا يخطرت يكون سجيين مرة كشقينيان وحيابها قدن فسادك سدوا كله شيء كستو أخلاقيات وحنون أما هلا جمعية هلا من يستبع إن الله سبي اللقاءات يعني ذاتك اللي توجهين أيوه أرنتها سوحي نقولنا يسار مها آدي موجود كواه وحنا وحاد دور وين كعياري وش أحمد قراسنا وطابطي إن ميديا يورجع كشقية ماركتي إذا علىها مارآد أيوه دور وين وقاتان إنه وحنا أكثر نشريان وحياة في عنا خير كيسيد ديان وأيدتك للضوء برامج فرابطن وأنت سكر أو شقيريان أو وحنا أنت لسيديني وهي سيء ميوسكي وحنا هين وهي إذا علىها أيوه مركز قروات كقاركود يا كنال هذا وحكب حياة وحنا معنا هين شرر إياه ما ريب لك شرر إسلام ميل فلسطيني ما أنتوا وحيروا مع أنا وحبا كليقينين مركز برامج وحكون ويكمل تومد السعيد ده ولا الله أخلاقياتك إن للضوبه ومحن كل أي آد النشريان وحن سلاها هي وحيابها رنتي محن كل واحد بدن تريه وحن قصوا قابين إياه وحكوها جايان وأرنتوا بيكون في عنان يسا ومضوا لما أنت يدبا
inaynu ku hawlanaano diinta ka shaqaynteeda oo iyada ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay inaanay diintu waxba ka tegin ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankani wuxuu inagu hanuunayaa waddatii ugu fiicnayd oo dhidhacay ku tahayba waxa weeyaan xalku halkaas ku jiraa intaasaan ku soo gabay asal allah subxaanahu wa tacaala yajcalana min aladiina yastabicuna alqawla fayattabicuuna ahsana subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk